kolka marka hore aynu ka bilowno muuqaalka wiilka gabadha baawurka ku afduubay ee watay waa wiilkan aad arkaysiin waxa la yiraahdaa Cabdiqani Dhiiran ayaa la yiraahdaa wiilkan Cabdiqani Dhiiran ayaa la wiilkan beesha mursada ayuu dhashay sabdi ayuu ka yahay qol la yiraahdo wuxuu ka yahay Abakar wuxuu ka yahay maxaa xasan niman la yiraahdo ka yahay waa mursade waa sabdi waa Abakar waa maxaa xasan staafka wuxuu ka tasanaa jiray janaal gaafow staafkiisu ka tasanaa haddana waa been masheegayaasha wuxuu ka tasan yahay Fahad Yaasiin hay'adda nisa marna security u noqdaa marna darawalba u noqdaa waana ninka Ikraan Tahliil afduubay gurigeeda baawurka aad arkaysaan baawurkan weeye bal aan fiirino ninka baawurkan wada weeye gabadha raaci doonto waa baawurkan arkaysaan ninka wada weeye Cabdiqani Dhiiran la yiraahdaa waxa loo yaqaanaa wadna qabad qof kasta oo nisa ah hadaa weydiisaan ama saraakiisha ciidanka dawladdu way yaqaanaan wadna qabad weeye ninka gabadha afduubaa weeye bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan baarayay afduubkii la afduubay gabadhii hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka u shaqeynaysa ee nisa Ikraan Tahliil kolka waxaan iminka idin hayaa muuqaalka iyo magaca iyo qabiilka ninkii gaariga waday ee gabadha afduubay ayaan idin hayaa sidoo kale waxaan idin hayaa muuqaalka CCTV-gii baawurka nuuciisii iyo markii gabadha raacisay ayaan idin hayaa waxa weeye waxaan ugu bashaaraynayaa waalidka dhalay gabadhaas inay nooshahay halka lagu hayana waan sheegayaa gurigii inkastoo dhowr guri la geeyey haddana gurigii ugu dambeeyay xalay la geeyey iminkaan sheegayaa oo warbixintan ayaad uga boganaysaan kolka marka hore aynu ka bilowno muuqaalka wiilka gabadha baawurka ku afduubay ee watay waa wiilkan aad arkaysiin waxa la yiraahdaa Cabdiqani Dhiiran ayaa la yiraahdaa wiilkan Cabdiqani Dhiiran ayaa la wiilkan beesha mursada ayuu dhashay sabdi ayuu ka yahay qol la yiraahdo wuxuu ka yahay Abakar wuxuu ka yahay maxaa xasan niman la yiraahdo ka yahay waa mursade waa sabdi waa Abakar waa maxaa xasan staafka wuxuu ka tasanaa jiray janaal gaafow staafkiisu ka tasanaa haddana waa been masheegayaasha wuxuu ka tasan yahay Fahad Yaasiin hay'adda nisa marna security u noqdaa marna darawalba u noqdaa waana ninka Ikraan Tahliil afduubay gurigeeda baawurka aad arkaysaan baawurkan weeye bal aan fiirino ninka baawurkan wada weeye gabadha raaci doonto waa baawurkan arkaysaan ninka wada weeye Cabdiqani Dhiiran la yiraahdaa waxa loo yaqaanaa wadna qabad qof kasta oo nisa ah hadaa weydiisaan ama saraakiisha ciidanka dawladdu way yaqaanaan wadna qabad weeye ninka gabadha afduubaa weeye baawur ku qaadaya wadna qabad sidii uu sii waday gabadhan Ikraan wuxuu geeyay xaafad ku taala degmada Boondheere halkaas ayaa gabadhii waxa markii hore looga qaaday telefoonkeedii gacanta iyo agabyadeedii kale waxa la wareegay email-ladeedii iyo Facebook-geedii waxa la baaray WhatsApp-keedii Ikraan maxaa lagu heestay weeye maxay ku heestaan Fahad Yaasiin iyo farmaajo maxay ku heestaan Ikraan weeye Ikraan waxa loo dhibaateeyay oo loo afduubay oo lagu heestaa waa gabadhii haysay ee qortay ee gacanteeda ku wada diiwaan gelisay dhammaan dhalinyaradii loo qaaday dalka Eritrea dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo qaaday dalka Eritrea gabadhii ma taqaanaa gacanteeda ku qorta weeye gabadhan qabiil ahaan waxay u dhalatay beesha hawi gaar ahaan gaal jecel weeye oo ree aabayaasheed ama adeerayaasheed waa gaal jecel ree hooyadeed ama abtiyaasheedna waa xawaale gabadhan Fahad Yaasiin afduubkeeda waxaa la amray markii uu gaaray dalka Qatar kadibna waxaa la hayaa cadeyn buuxda Fahad Yaasiin oo dalka Pakistan jooga oo gabadhan ka wareysanaya isagoo
magac nin isticmaalaya oo ka dhigaya ninkii asaga ahaa dhahaya ayaa la hayaa kolka cadaymaha waxa weeye baaris baa socota kuma degdegayno laakiin kiiska labaad ee Fahad Yaasiin iyo farmaajo gabadha u haystaan waxa weeye waxay rumaysan yihiin in Ikraan Tahliil ay dalka Ingiriiska tagtay oo ay bixisay oo hay'adda Human Rights ay siisay macluumaadkii ku saabsanaa liiskii dhalinyarada waxa kale oo la rumaysan yahay oo lagu haystaa Ikraan Tahliil inay bixisay macluumaad ku saabsan habkii loo dilay dudii magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Yariisow sidii loo dilay ayaa la aaminsan yahay Fahad iyo ragiisa ay aaminsan yihiin farmaajo in mataqaana warbixin ku saabsan dilkii injineer Yariisow dawladda Ingiriiska ay siisay Ikraan Tahliil waxaan intaa ku darayaa markii Cabdiqani Dhiirane wadna qabad uu gabadha afduubay ee la geeyay guriga Boondheere 4 cisho kadib oo baaris oo socotay gabadha waxaa lagu bilaabay in la qaawiyo oo fiidiyo laga duubo taasoo ah violation ama abuse ama dembi kale gabadhaas waa la qaawiyay waxaana mataqaan laga duubo filmadaasi 3 nooc ay ahaayeen mid musqusha dhexdeeda iyadoo mayranaysa liyo qoyso iyadoo qaawan waa laga duubay midna qolka ayaa mataqaana looga dhex duubay midna ayada oo gaari ag taagan baa laga duubay dhex yaala guri weyn dhexdiisa yaala markii ay soo baxday xaaladda oo hooyadeed ay hadashay gabadha Ikraana ayaa gurigii ay ku jirtay 2 habeen kadib laga bixiyay Fahad Yaasiin Muqdisho ayuu ku laabtay laakiin xalay mahana habeen hore haddana gurigi ay ku jirtay waa laga soo saaray oo guri ku dhow godka Jilcow ayaa la keenay oo ay mataqaana hadda ay ku hooyanaysaa waxaa la hadlay askar iyo saraakiil ka tirsan hay'adda NISA waxaan ka helay macluumaad muhiim ah waxaan kaloo aan la hadlay ila wareedi kale oo aad arinta uga warqaba waxaan ka helay macluumaad muhiim ah laakiin macluumaadka intooda badan iyo cadaymuhu lama wadaagi kara shacabka ilaa ma baaristu ay soo gabagabowdo waxaan xaqiijinayaa inay Ikraan Tahliil ay nooshahay ayaan xaqiijinayaa waxaan halkan ku hayaa cod marka Ikraan filimka laga duubayay iyadoo soo wax lagu garaacayo ayaan codkeedii qayb kamid ah ayaan hayaa muuqaal weyn laakiin codkan ka soo dayn karaa hadii loo baahdo oo halkaas soo dhigi karaa codka qayb kamid ah waa qalowd ay yiraahdaan raadiska waa dhawaaq shanqar calaacal ah oo ataw ah oo la maqlayo weyn marka waxaan saadaalinayaa ama aan qiyaasayaa waxa leedahay waxaan la isgareynayaa Ikraan Tahliil may badbaadaysaa muse waa la dilayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa wuxuu ku leeyahay kullu nafsin dha'iqatul mawt naf kastaba mawdkay dhimanaysaa haddana wuxuu leeyahay idaa jaa ajaluhum laa yasquruna saacatu walaa yastaqdimuuna qofna waqtigiisa ma dhaafay marka labadaasba ma beeni karo laakiin marka aan fiiriyay kiiska lagu haysto Ikraan marka aan ka tusaale qaato habdhaqanka Fahad Yaasiin iyo farmaajo qorshahoodu wuxuu yahay gabadha in la dilo kadibna lagu aaso meel qarsoodiya laakiin maamaha waxay leedahay wuxuu qof og yahay laba og waxaan hubaa in kiiskaasi uu noqon doono dembi weyn iminkana dembi weyn oo u muuqdaa oo hay'adihii dawladda oo dhan iyo beesha caalamka meel kasta uu saameeyay qabiilada Soomaali dhexdoodana wuu saameeyay waxa weeye Ikraan waxay u baahan tahay hiil iyo gurmad ka weyn kan hadda socda Ikraan waxay u baahan tahay in loo istaago oo banaanbaxyo salmi ah iyo kacdoono salmiya ay meel kasta ka bilowdaan waxa kale Ikraan kiiskeedu uu saameyn ku yeeshay qabiiladii oo dhalinyarada hay'adda NISA ku jiray ee beesha gaal jecel iyo kubii xawaale ayaa shaqadii hiiraan ka tagay oo waxay soo duubayaan fiidiyo ay ku hanjabayaan in ay afduubanayaan dadka ku qabiilka ah ee Fahad Yaasiin taasday bilaabatana waa halista ugu weyn ee Soomaalidu ay isaga dayan doonto oo ah in la afduubo dadkii farmaajo ku qabiilka ahaa dadkii Fahad ku qabiilka ahaa iyo
in mataqaanaa ay Soomaali noqoto in la kala caargoosto inkastoo xeeladayaashu ay leeyihiin qaniya ka fujiso oo haddii ay saa dhacdo dadku ay kala cabsan doonaan haddana waalidiin badan ayay carruurtoodii ka maqan tahay oo carruurtii waalidiin badan ayaa mataqaanaa ooyaya guryo badan oo farmaajo looga mashxarin jiray oo looga faraxsanaa ayay maanta tacsi iyo baroordiiq u taallaa maxaa yeelay maxamed cabdullaahi farmaajo dadkii taageera oo dhan wuxuu ugu abaalguday uu abaalgud uga dhigay inuu ilmahoodii ka iibiyo Ethiopia oo dagaalka Tigray ku dhamaadaan qaarna la heestanimo hostages ay ku yihiin Eritrea kuwii gudahan inuu dilo oo Iran ugu dambeysay marka guryo badan oo farmaajo laga taageeri jiray ayaa iminka oohinta iyo baroordiiqda iyo catawga baxayo la yaabay waxa kale yaab leh inuu farmaajo noqday ninka kaliya aan u jawaabin kumanaan kun oo waalidiin Soomaaliyeed ah oo weydiinaya ilmaheennii may nool yihiin raq iyo ruux noo sheeg xaalkoo siduu yahay inuu u jawaabin marka taasaa keenaysaa leeyahay marka loo fiirshay haddana gabar la afduubay oo hay'adda secretary taas ayaa keenaysa marka in qabiiladu hadda ay xal bidaan in mataqaanaa ay ayaguna dad afduubtaan oo dad badan ay afduubtaan oo haddii gabar la dilna ay dilaan waana dhaqan soo jireen ah oo xitaa maaha Soomaalida kaliya ilaa Carabi ilaa caalamka oo dhan laga isticmaalo qabiilnimo loo kala baqi jiray marka dad badan hadda carruurtooda ka maqan yihiin waxay u arkaan inay wax ku heli karaan argossi inay sameeyaan oo saa loo kala baqi karo laakiin waxa weeye waxa ay sameynayaan farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay ku sameeyeen ubadka Soomaaliyeed ee ugu dambeysay Iran waa calool xumo iyo waxaan la filin oo dhaqanka Soomaaliduba qayb ka ahayn oo nagu cusub oo u baahan in laga hortago laakiin dhinaca kalena ciidankii qaranka ee hay'adda sirdoonka nabadsuugida iyo kuwa militariga iyo booliiska intaba way saamaysay oo hadda afduubkii Ikraan Tahliil waxa uu soo dejiyay in ciidankii Hiiraan joogay ee wiilashii gabadha ay mataqaan wada dhasheen ee xagga ama hooyada ka wada dhasheen ama xagga aabaha xawaali gaal jecelku ay ka baxaan ciidankii oo igu qori wato ay muuqaal soo duubaan sida muuqaalkan oo kale ninkeedina waxa la hayaa waa sargaal hore ka tirsan hay'adda nabadsuugida sirdoonka qaranka Soomaaliyeed qori haddii uu wax taraayo ama ummadda Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed qori lagu gumaadaya maanta aniga qori waa haystaa qabiilan ka soo jeeda toddoba gaal jeclaa leedahaa gabar Soomaaliyeed oo walaashii ah ina maaragtaa nin anigoo kale ah oo 20 jir ah oo hay'adda nabadsuugida sirdoonka qaranka kala tirsan oo gumaysto midaan u dulqaadanaya maaha mana u dulqaadan doono qorina waa sitaa waana haystaa gabadhaas waxay ka dhalatay 2 beelood oo halbowle ah ummadda Soomaaliyeed waa la yaqaan labadaas beelood waa beesha Xawaadle iyo beesha gaal jecel marka Xawaadle Maxamed iyo waxay ka dhalatay gaal jecel Sarsoor gabadhaas maahan gabar duur ka dhalatay haddii aan nahay dhalinyarada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaan u taagannahay maanta hubka u sidana waa inaan la dagaalano Fahad Yaasiin iyo cid alaali ciidii oo qabiilkiisa kamid ah war annaga qarannimo iskala baxnay qabiilnimo isku gudbeenaa qarankan wada shaqeyno qaymahan ka wada shaqeyno aytiinka nolosha iyo qaymaha adduunka aan ka shaqeyno waa diidaan waxaan ahay saacadan laga bilaabo qabiil waxaan la dagaalamayaa qabiilkaaga waxaan ahay sargaal ka tirsan hay'adda nabadsuugida sirdoonka qaranka dhibaatooyin badan ayaan kala kulmay gabadhaas maanta la qabsaday waa aqoon-yahanad oo qaranka u halgamaysay ummadda Soomaaliyeed dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda u halgamaysay waxa lagu haystaa waa dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda mid la aqbalaya maaha haddii ay qori tagtaan qori waa kana oo cid wax ii sheegaysa malaha aniga ah sargaal ka tirsan hay'adda nabadsuugida sirdoonka qaranka ee Soomaaliya haddii ay gabar tagtaana aniga dilay gabdhihiin ciidan ugu aabiyeelaya ama ciidan ugu heebeysanaya malahan gabar Soomaaliyeed inaa la dhibaateeyo anay ila dhalatay anay jiixayga tahay anay jirkayga tahay anay dhiigayga tahay mana ka dulqaadanaya mana ka yeelay hoggaanka aad noo haysid ee ummadda Soomaaliyeed u haysid wuxuu ahay inaan la dagaalano al-shabaab maantana lama dagaalamaysa al-shabaab ee waxa la dagaalamaysa dumarka Soomaaliyeed
ee wax soo bartay ee saraakiisha ahay ee hore u socodka iyo hoggaanka ummadda soomaaliyeed qayb weyn ka lahay cid kaa yeelaysana ma lahan saacaddan laga bilaabo waxaan qorigaas u sitaa anigoo ahay sargaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka maanta laga bilaabana aan sirdoonka qaranka aan u shaqeeyo doonin bisna eega tahay inaan sirdoonka qaranka u shaqeeyo gabadhaas inaan lagu soo sheego xaqeeda meel deg deg haddii lagu soo sheegi waayo 24 saac gudahooda waa ka jawaabaya aniga dil baan geysanayaa bareer ah ummadda soomaaliyeed markhaati ka aada haddii aan gabadha lagu soo sheegin nolol iyo geeri 24 saac gudahooda waxaan geysanayaa dil bareer ah waxaana u geysanayaa qabiilka Fahad Yaasiin cidaan uga heebeysanaya maaha waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed qoray hadduu wax taraya iyo gumaad gabdhaha soomaaliyeed la dhacaya anigana haddaan dilayaa haddaan dhibaato bilaabaya way noo bilaabatay way noo bilaabanaysaa boqol rag maanta hadduu iga xiri lahay ama uu iga dili lahay qabiil ahaan wax boorbaleen uma qaadateen oo boqolkaas ragga ah waxba uma aragteen raggu waa isdilaa waa isqabtaa oo ragga dhibaatooyin badanaa dhex marto laakiin gabadhaas marnaba uma dulqaadan doono inay 24 saac ka badan ay maqnaato war hilibkayga ima cunsiinaysid mana i cunsiin doontid mana kaa yeelay hilibkayga ina ma cunsiinaysid hilibkaagaan ku cunsiinaa haddaa hilibkayga cunsiisid haddaa hilibkayga cunsiisid hilibkaagaan ku cunsiinaa midda kale waxaan leeyahay xildhibaanada ka soo jeeda beesha xawaadle iyo beesha gaal jecel baaq aan idin siinayaa oo weliba canaantiisa wata aan idin baryayna adinka xataa ballanteena waa kan haddii aad 24 saac gudahooda aad kaga hadli waysaan oo gabadhaas ku keeni waysaan hadduu xildhibaan daba shaqeeyo oo maaragtaa barnaamijkaas daba u shaqeeyo oo maaragta dowladnimo iyo nidaam daba oo balweyne ka shaqeeyo anigaa qalad iskale magaceygana waa yaqaaniin cid kastaana way taqaanaa soomaaliya aniga waxaan ahay nin nabadeed nabadana aad u jecel laakiin mar haddaan kaca waa la yaqaana ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogta gaar ahaan ummadda reer hiiraan way taqaanaa ummadda reer hiiraan way taqaanaa al-shabaab way yaqaaniin cid kastoo ani dabacdeeda way taqaanaa xumaan kasta cid wax iga qaadaysa ma laha waxaan halkan kala hadlayaa xildhibaanada u hinjibaadaya dowlad goboleedyada oo wax kasta ka sheegi jira ha ka hadlaan gabadhaas dowlad goboleedyaa u hinjibi jirteen xaqa ku taaganaad u hinjibi jirteen waxaad u hinjibi jirteen maaragtaa dadka soomaaliyeed canaano jirteen hadday bahashi ka hadal rabtaa hadday runta taagan tahay ina hilibkiina nila cunsiiyo oo gabdhihiinni nagula afduubto oo aadan diyaar u tihiin aad raalli ka tihiin midaan u dulqaadanayna maha wax aan ka yeelaya ma lahan mana ka yeeli doono xildhibaanadana warkaas ha qaataan hadday qaadan waayaana xildhibaan kasta ha ku xisaabtamo ballanteenu waa tan haddaan gabadhaas meel lagu soo sheegay waayahay waxaa weeye waxaan rabaa inaan u sheego waalidka dhalay ikraan iyo ehelkeeda inaan faylka baarista ikraan tahliil aniga aan la wareegay oon ku dhiiranahay inaan soo gudbi doono macluumaad marka aan aniga iyo waalidkeed iyo ehelkeeda iyo dadku shaqada leh aan wada hadalno waxaan rabaa inaan kiiskaa aniga soo bandhigo oo shacabka Soomaaliya la wadaago ee tusad hadba xaaladda sayta waxaan ku kalsoonahay inaan ahay qofka kaliya ee baaristaas faldambiyeedka noocaasa ka keeni kara natiijo wax ku ool ah sidaa darteed waxaan ugu laaba qaboojinayaa waalidkii in gabadha ay nooshahay laakiin waxay noosha aan la ogeyn oo qof dumara oo rag guri ugu xiran oo la jirdilay oo fiideo laga duubay oo lagu heystay inay bixisay magacyadii liiskii dhalinyaradii loo qaaday Eritrea iyo macluumaad ku saabsan dilkii Cabdiraxmaan Yirisow loo haysto oo ay haystaan dad cadawgan ka naxayn waxaan ognahay in Fahad Yaasiin hadda uu u socdo Hiiraan oo uu rabo beledweyne inuu ka soo qaato xildhibaan inkastoo leeyahay jawhar lagu soo wareejiyay haddana sharciyad uma laha taas marka waxaan leeyahay kiiskan sida dad badan u maleeyaan ma noqon doono kiiskan waxaa laga yaabaa in uu wax dhib weyn uu mataqaana horseedo macaaradku qabiilo weeye marka maalin kasta dadka jugta lagu hayo oo la dhibaateynayo mar un bay jawaabayaan wadaan cali soo dabasha geedo marxuuna ciyaasiso faatixada akhriya allaha soo sahlo ikraan tahliil aniguna barnaamijku hofaasan dib baan uga soo hadlayaa intaan waxay igu tahay xilli dambana way ii tahay hordhacna way igu tahay
oo waxaan doonay inaan dadka fahamsiiyo waxaana leeyahay wax cabsiyahoo badan hadda ma jiraan haddii la hayo ood arkaysaan wiilkii gabadha baabuurka ku qaaday sawirkiisii magaciisii qabiilkiisii waa la yaqaanaa weliba ani waxaan qabaa inay beesha gaal jecel u tagto beesha murursade ayaga mataqaanaa loo sheego dhibka dhacay kadibna cabdiqani la soo xiro cabdiqani dhiirane halkaasna kiiska laga raasraaco way fuudda marka anu laakiin baaristeedu way madax bannaan tahay qofna lacag uguma rabo qofna abaal uguma rabo waxaan u dhowaanayaa cadaaladda waxaan u dhowaanayaa ilaahay xaggiisa uun ajir kaga rabo iyo xasanaad waxaan ugu abaal mataqaana ugu hiilinayaa abaal ma ahee waalidka ubadkoodu uu maqan yahay murugaysan gaar ahaan hooyada dhashay ikraan tahliil oo arkay iyadoo oo hadlaysa oo ooynaysa oo gabadheedii xanuun ay ku hayso waana sax waana waalid dahra cali wuxuu leeyahay dabashigeeda marxuun ciyaasise ha baqlayso